ifka lagu yahay walaal ifka laysweheshadaa ifka wax laysugu taraay alla ifka lagu yahay walaal ifka laysweheshadaa ifka wax laysugu taraay baraka garbaciise ee mulli ku nool marka waxaan ka hadlayaa dhibaatooyin aad u badan oo ugu habsaday dhibaatooyinkana waxay ahaayeen wixii hore sheegnay aan ka soo baxnay hadda laba ka taabanaya labadaasi waxay yihiin labada waxay yihiin xagga guriga cunaha marka xagga cunada iyo xagga caafimaad la'aanta labada baan haysata aadna noogu xun dowladdeegaanka Soomaalidana noo aamusay sidii markii hore taba noogu aamusay sidii markii hore noogu aamusay haddana gaajana haysa guriga haya dadkii wax ka soo baxay ma jiro guriyaha saddex bilood ay waxaan joognay qurasho ku imanay dowladda Kenya iyo gobolka dhamaanba iyo degmadana aan joognaba ah way isku imatay meeshan wayna aragtay madaxweynaha Kenya Soomaalida Mustafa yaa la socday aba ogaas iyo la socodiisina way la socdeen halkan bay noogu yimaadeen dhigteeda waan faafinay waxaan noogu sheexin halkii hadiina nagu laayay oo nagu mariyay ay dawladdu noo soo gurmo weyday hadda inuu guriga nooga soo gurmato weeyaan baan laba bilood oo safid noogu yimaadaa labada bilood iyo 17 cisho markii noogu yimaaday marka madaxweynaha waan la hadalay irtaabaan haysto noogu ximbaaniri kolka dhibaatadii sida aan sheegnay madaxweynaha Kenya Soomaalida oo naga shaafiyay wuxuu yiri wixii hore doorashaan ku jirnay doorashaan ku maqneen dhul badan waa naga gooyay halka baan ku maqnay marka imika ka soo bishii kasta uu imanaya madaxweynaha hadda uu imanaya bil kasta uu imanaya bishii uu imanaya la lahaa waan dhaafno imika markii hore labada ku imanay noogu yimidaba roonayd markii labada uu noogu yimid waan sii ogeysiinay malaha inay laba naga maqanto oo saddexeey wuxuu ma garanayna saddex buu imika nooga dhigay madaxweynaha Kenya Soomaalida hadduu taa nooga dhigin amarkiisii soo baxay wuxuu u fuli waayay maxaade waxna noogu qaban waayo bishii uu sheegay gobolka iyay ka soo gu'i weyday makiilkay ka soo gu'i weydo arrinkiisii fulin waayay annagu isaga fulin waayaan leenahay waxaan u leenahay isaga madaxweynaha naga waan dhimanayo kol waan na dilay ciidankii baan naag jooga haw taginaan lahaa waan ka soo baxno halkan baan imano dib baan u sheeganay dibtii aan u sheeganay waxna nooga qabtay ma jirto waxana noo keenay 520 kiiso banjaan noo keenay 1200 oo qoysna waan madaxweynaha hortiisa ku codanay 1200 oo qoys kale aad u gaarsiid wuxuu ugu dhicay 13 gram buu ugu dhicay bariis baa oo la karsan waa la iibso 500 bay noqotay kardadiis 250 baa loo qaatay cisadii waa lagu casheeyay oo qadeerna waa laga karsaday intii ka dambeysay sidii buu yahay odyaha imika qaladan ka soo wada dhex saarnay meesha jooga shalay subaxii maxamed cunin bay taagan yihiin shalay subaxii baa noogu dambeysay waa odyaha waa yeelada weeyaan aasas agoon oo halkan wada jiifo oo wada bukana waan dul geynaynaa ay dhibaatooyinka ku haysadeen marka duqaha halkaa wada joogay yakun waa kuwa ma afrin bay leeyihiin shalay subaxii baa qurax noogu dambeysay leeyihiin magaalada la galaa deenkii magaalada ay dadku ka qabeen hadda gacmaha la isku dhiftay wax u soo biiri dadku kolkay waayeen wixii aan ka qaadanaynin waa la waayay kolka dadkaas maanta waa hugur waxaya waayay inta la xig ee dhalay ubadkii yaryaraayo dhan waa kuwan iyakuna ma wax ma cuninta ay hayaan gaajana la isii leeyihiin saanqooshadu waa kuwa soo qaatay waxay leeyihiin
iska socdo waraabahan ya marka dhibaatooyinka caynka ana dowladda kiilanka shanaad kol bayn la dishay mar labaad inay hunguri ugu dishay ma inaan hungurina mar kasta ku cabanno mar kastaba inaan hunguri ku cabanno ma wardiitu wasal magaas waxaan kitaab magaasa waa ka dadkiisi wali maskaxdoodu way dhaqaaqday waa kuwa istijiidanaya arkaysid dadkaasi ma dhanno waxay ka xusuusteen dadkii ka dhintay ninka islaantiisii iyo hooyadii baa ka dhimatay inta la sii wado saaka ma qubeecan dhibaatadaabaa haysa dibtaabaa markaa dadka saas marka dhibaatooyinka dadka haysa isku cunayaan isku leeyahanka waxaa ka dhimatay agoontii islaantiisii baa ka dhimatay hooyadii baa ka dhimatay ubadkiiba madkuu wataa saakana waxba ma cinin buleeyi gaajadaabaa dadka haysa dhibaatadaabaa isku diraysa marka waxaan leeyahay dowlad deegaanka Soomaalidu hadday wax noo qabanayaan sideeda noo taakulayaan wax noogu keenaan hadday wax ay noo qabanayna inay dadkayga gaajo ku marayaan gaajo ku laayaan maaha wixii ay nagala hadleen wax ka jira ma jiro waxay ka soo horumarinayaan ma jiro waxa inta taala dhibaatadaabaa isku diraysa marka waxaan leeyahay dowlad deegaanka Soomaalidu hadday wax noo qabanayaan sideeda noo taakulayaan wax noogu keenaan hadday wax ay noo qabanayna inay dadkayga gaajo ku marayaan gaajo ku laayaan maaha wixii ay nagala hadleen wax ka jira ma jiro waxay ka soo horumarinayaan ma jiro waxa inta taala kiisha yaalay 1200 kaale u qayb bariiskii waa nii keenana lid inta buu noqday sokortii ma hayno caanihii ma hayno daqiiqdii ma hayno way soo socdaan 200 qinjaana sideed ka soo socota bishii Ramadaan way imatay dadkan markaa ina gaajo lagu dilo maaha qanjaha soo socda meelaha loo joojinayo cuntada yar jilicsina dadka la siinayo dadka dad reer miyiga qanjaha saloonayo tumanaya maaha kabdada daqiiqda u dhaanta xabada qanjaha marka inay tii halkan ay soo wadaan inay daayaan tani ay hadda ku saleeyaan abaaraha ayay rabaan baan u maleynaa xagga macaash dadka ka wada iyo guntoogu aasan dadka bini'aadamkaana ina oo walaalka oo dhibaataysan oo arkaysinna waa loo sarakacay ina lagu joogsado ma markastaan nigala hadalay adeecad kasta waan ka soo hadlay joogay jiif baan uga soo hadlay fadhi baan uga soo hadlay hatta telefoonadii bin naga qaban waayaan bigaaran waxay dawlad gaareen waa dad baahan bay leeyihiin baahida ilaahay baa keenay waxa magacooda aad ku cunaysid mas'uulka ka tahay u keen Soomaalida إن ما بعوجن بعد كتاي دولته ما بعوجن بعد كتاي واحد هذا ما بعوجي وحكوة وحباي مالك الله وكينا يكون المور إن الدولة مع بارين لكن ما بعوجه أياد وحكوة صوت دولة ما كتاي دولة مشارك قادة هذه أبو مصطفى وعن مشارك وقادين يشين وأمت هذا ويان حتى هذا مد بالهيدا يا كودي بالمدحوين يا كارد جايته حلي يا كودي بنكرته marka gobolka gaar ahaan waxa la sii hadlayaa shiniile leeyahay la sii hadli hoolidii loo waxa buuxa agoomaha leeyahay buux oo raashinka ciidamada liyuuga iyo wuxuu looga guro oo halka la marsho cid kalena ay taabanay dawladdu inta iska jirto ma loo soo rar xagan 360 ciyaala agooma oo halkan joogo hooyi aba mid balahayn ma loo soo rar oo loo keeno warayna ana ku city hadana city waxaan ka sii hadlaynaa dhibaatada ugu weyn bayna city tahay weeyaan waxa amarka madaxweynaha fulina waa city weeyaan marka waxaan leenahay city hadii aad dadka aad leedahay oo kamid tahay xisaab baa jirta isla xisaabtan baa jirta kuwa hore nasuulime waan garanaynaa sharciga lagu la xisaabtan baa imanaya kuwa hadda joogana waxaan leenahay hadii kuwa dadka soo gaari waayaan xisaabtan baa imanaya iyagana waa la xisaabtan dadka gaajada ha ka soo gaaraan hanana gaaro meel la geeyaba hanana gaaro sida baa ka tagaano haddana naka sidaabanka waa haro kacayna u daacun hal mariye ninka wuxuu haystaa 5 ciyaal ah madquu haystaa taasi u yar tahay marka waxa ka dhimatay hooyadood iyo isagu hooyadii baa ka dhimatay wax dan oo hayana ma jiro sida uu sheegayo kuwii kale ka roonaatanay gaajay baa qalka ka soo bixiyay way wada jiifaan marka dadka dhibaatooyinka baa wada haya وكان كلاته هويين يكون صاحب وحده من هذه بين موديسين بالواقع هاي أفكو جابك هو يجي ساكا وحده من عينين بيلي مع شيء
dari ma karsan halkaa biyaha un baan fadhinaayo ilaahay wuxuu ogyahay dadkii qaydka nagu qabtay ee gacmahana qabtay ee na fadhiisay ee biyaha noo furay waxaana haynoo danahoon qabni ma jiro marka degmada mulli aad bay malaha uga takooran tahay dhulka kaleetaan u marayaa degmooyinka kale dadkii ku barakacay si fiican baa loo qaabilaa si fiicanna waa loo hayaa degmada mullise qaabilaad anigu kama hayo xagga dowladda soomaalida ah markaa xitaa waxaan arkaynaa barakac dirdhaba laga soo raray oo halkan degan oo dadkii laga soo kaxeeyey oo ilaa iminka cishadii ugu horreysay yimaadeen raashin u yimiday shalay odayaal baa noo yimid ooyaya waxay yidhaahdeen maxaan inii keena yidhaahdeen waxaabaa la keenay dadka gaari baan ku nidhi 4 bilood baa 5 bilood baa joognaa bishii horreysay baan wax aragnay wax dambena nooma keenin dadkii aan la midka ahayna ari baa la siiyeyna naga soo dhex qaaday hadday erar laga bilaabo hadday kuwa kaleeta tahay 3 meelood oo kaleeta ari baa la siiyey raashinaa la siiyey lacag baa la siiyey annaka waxba lama siin bayna dowladda taarkeerkan ay ku qabatay degmada mulli ee naallo soomaalida ba aan ku dhannahay naallo iyo dhulka kaleeta ee wax la siinaya maxay kala tahay baan leenahay annagu shimidiyaatana noo eegaan leh waa kuwa duqow gaajo ka cikari la xanuuno ugu biiray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh